Assalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ah. Maanta waa maalin kale. Yaan idiin wadnaa. Waxaan maanta doonayaa inaan halkan kaga sheekeeyo taariikhda fanaanka hal sano gudaheeda fanka ku qabsaday ee Sharma Boy. Waa ninka ragga ah ee soo maray jabka, iminkana ku naaloonaya guusha uu ka faa'iiday jabkaasi kadib. Sharma Boy waa da'yar ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. Fankiisa waxa uu soo bilowday 2019 kadib markii uu istuudiyoyaal badan inuu tagay laga diiday in wax codsi ah laga qabto. Sidaas darteed, Sharma Boy waxa uu isku dayay in si gacantiisa ah uu uga soo caan baxa ilaa markii dambena uu heer ka soo gaaray. Sharma Boy arrinkaas dhibaato iyo jab ayuu ka soo maray, balse maanta waxa uu aad ugu faraxsan yahay guusha uu arrinkaasi ka gaaray. Asxaabta qaaliga ah, naga iloobina inaad YouTube channelkeena soo booqataan, subscribe-na aad dhahdaan. Waa Ismaaciil Axmed Official. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Sheekada meesheedu aynu ka sii wadnay. Sharma Boy waxa uu galay aroos oo waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Malyun Maanka oo ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee magaalada Burco. Sharma Boy guurkiisa kuma uusan naaloonin. Maalmo yar markii ay isqabeen, waxay ku laabatay Malyun magaaladeedii Burco. Balse Sharma oo meeshiisa wixiisa ka sii watay, asxaabtiisana jawi la qaadanayay, ayaa gaaray magaalada Puntland. Inta uusan tagin ka hor magaalada Puntland, waxa uu aaday safarkiisii ugu horreeyay ee uu uga baxay Djibouti, halkaas oo uu show ku soo qabsaday. Showga kadib waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho, balse waxa ay isqabteen Daahir Cabdulle Calasow. Daahir waxa ay cunugan isla soo mareen dhibaato aad u fara badan, ilaa iyo markii dambe uu ka jabsaday YouTube channel-kiisa oo dhan, uuna ka dhex qadeeyay sida isaga uu sheegtay. Balse Daahir Calasow marka aynu wejigiisa dib u eegno, waaba nin xaqiiqatan u eg nin burcad ah oo musiibo balaayo ka fakatay oo qurbaha la geeyay ah. Ninkani xaqiiqatan waa nin lagu diray dhalinyarada kana xun mar walba horumarkooda. Haddaba Daahir Calasow Sharma Boy waxa uu ku haystay sababta uu farmaajo hees ugu soo qaaday, waa sida la sheegay. Balse Sharma Boy intaasi kadib, Daahir Calasow waa laga xaliyay, waa uuna ka soo gudbay. Sharma Boy waxa uu u cararay magaalada Puntland. Xaaskiisina waxa ay u yeelatay uur, oo maanta waxaaba u jooga hal wiil oo Sharma Boy uu dhalay, magaalada Nairobi ugu dhashay bisha aynu soo dhaafnay. Sharma Boy waxa uu isaga noolaa Puntland muddo dheer. Kadib waxa ay kulmeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Siciid oo uu waqti la qaatay ayaa Sharma Boy dhiirigelin siiyay, una sheegay inuu fankiisa halkiisa ka sii wado. Sharma Boy oo guulihiisa ku sii soconaya ayaa u gudbay safar dhinaca qurbaha ah, ilaa markii dambe uu u baxay dhinaca iyo Zambia, oo waxa uu noqdayba fanaan caalami ah. Intaasi kadib waxa uu soo saarayay heesa aanan caadi ahayn oo marna balaayo ka fakatay ah. Sharma Boy waxa la arkayay isaga oo iska raax. Sharma Boy intaasi kadib waxa uu bilaabay in adoonta uu bara af Soomaali. Salama Somalia, wabasos hoda, mahasos hoda, hadayaba, Tim Sharma Boy. Sharma Boy waxa uga sii socday guulihiisii uu waday ilaa iyo maantana uu ku naaloonaya. Sharma Boy markaasi kadib wax dhibaato ah ma taabanin, mana arkin wax dhibo, ilaa uu soo qaaday in ka badan 50 heesood oo ay isaga raaxaystaan dadka maanta, isagana madadaashaan. Sharma Boy waa fanaan dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed. Fanka sida muddada uu ku qabsaday ilaa iyo imika cid ku qabsatay ma jirto. Sharma Boy 2021 waxa uu ku guuleystay fanaanka sanadka ee lagu qabto Somali Museum
oo Minnesota ku taal. Kadib Sharma Boy waxa ay ishaleen fanaanka shacbiyadda dunida ku leh waa fanaanka ruxay dunida 2010 ilaa imikana qoorta ka haysta waa fanaanka lagu magacaabo Keenan Warsame. Keenan waxa uu ku soo barbaaray isagana qurbaha 2010 mar uu heesta Waves Flags uu qaaday ayuu dunida aad uga shacbaxay ilaa maantana dunida looga aqoonsan yahay fanaanka ugu shidan mise ugu talentiga wanaagsan dunida inta badan mise top 10 kaba lagu tiray heesihiisana dunida ka gaday waa fanaanka Sharma Boy. Fadlan haddaad ka heshay taariikhdiisa qaybta commentiga ayaad inagula wadaagi kartaa. waxaynu ku xijini doonaa taariikhda wiilkan guuleystay, sidoo kale fanaanka kale ee isagana Soomaaliga ah ee guuleystay aynu halkan wax yar kaga soo taabanay, balse taariikhdiisa oo dhameystiran aynu dib ku soo gudbin doonaa waa Keenan Warsame. waxaa inoo ballan ah muuqaalka xiga. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalka waxaad inoogu soo sheegi kartaa qaybta commentiga, sidoo kale muuqaalka like saar. Sharma Boy intaasi kadib waxa uu bilaabay in adoonta uu baro af Soomaali. Salama Somalia, wabasos hoda, mahasos hoda, hadayaba, Tim Sharma Boy. Sharma Boy waxa uga sii socday guulihiisii uu waday ilaa iyo maantana uu ku naaloonaya. Sharma Boy markaasi kadib wax dhibaato ah ma taabanin, mana arkin wax dhibo ilaa uu soo qaaday in ka badan 50 heesood oo ay isaga raaxaystaan dadka maanta isagana madadaashaan. Sharma Boy waa fanaan dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed. fanka sida muddada uu ku qabsaday ilaa iyo imika cid ku qabsatay ma jirto. Sharma Boy 2021 waxa uu ku guuleystay fanaanka sanadka ee lagu qabto Somali Museum oo Minnesota ku taal.